Assalaamu calaykum daawada halkan waxaa kugu soo gudbinayaa warbixin khatarteeda wadato dadweynaha Soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa inay ka warhayaan carruurtooda waayo waxaan helnay warbixin lagu kalsoonaan karo boqolkiiba boqol oo tilmaamaysa in deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ay ku yaalaan guryo carruurta la soo dafo lagu kawaano iyadoo si naxariis dar ah inta qalin lagu sameeyo lagala baxayo qaybaha muhiimka ah ee jirka bini'aadamka. Markii aan arrintan ogaaday runtii waxay igu noqotay mid la yaab leh in bulshada Soomaaliyeed ay ku dhex nool yihiin qowleysato abaabulan oo xarun ku kala leh deegaanada dalka kuwaas oo ka ganacsada jirka bini'aadamka. Caashi Yare waa gabadha aan waalidkeeda ka xaqiijiyay in horaantii bishan xilli dugsiga laga soo daayay la dafay. Da'deedu waa 10 jir waxaana dad aysan garanayn oo 3 qof ah ku riteen baabuur mid dhaxda ayuu qabtay midna lugaha midna afka. Kadibna waxay geeyeen guri aan waxba ka fogeyn isla ceelasha biyaha. Caashi waxay rumaysan weysay wixii ay aragtay oo ahaa in goobta ay ku sugan tahay ay darbiyadeedu suran yihiin miinshaaro, baangado, tooreeyo, faas, biro aysan weligeed arag iyo wixii la mid ah. Waxa kale oo indhaheedu qabteen saacadii qalinka oo qolka diyaar ku ahayd. Caashi guriga ayaa kor loogu xiray laakiin waqtigeedii Ilaahay ma qadarin. Waxa ayna xoogaa kadib aragtay daaqadii qolkaasi tariiniga ahaa maba aysan suginayn daaqadii ayay furtay wayna ka buuday. Waxaana iyadoo shoogsan saacado kadib markii la dafay ay soo istaagtay meel aan ka fogeyn gurigeedii. Waxa ayna garatay qaar ka mid ah dadkii xaafadda oo gurigoodii keenay. Markii ay intaasi dhacday oo Caashi Yare oo nabad qabtay ee reerkeedii ku soo laabatay waxay ka sheekaysay musiibadii qabsatay. Waxa waalidiintii Caashi ay go'aan ku gaareen inay deegaanka ceelasha biyaha ka haajiraan oo ay deegaanada kale oo xamar guri ka raadsadaan. Fadlan carruurta ha la ilaaliyo oo kaligood yaan dibadda loo dirin. Dalkan waa loo soo shaqo tagay oo qowleysatadu ciidaas ayay ka badan yihiin. Ilaahayna ha idin xafido dhammaantiin idinka iyo carruurtiinaba. Nasiib xumada haysata waxaa ka mid ah in aynaan haysan dowlad wax ka qaban karta waxaan socda. Imisa maqasheen carruur la naadinayo ha sugan inta lagaaga imaanayo kolley laguma dhaafayo haddii aadan hadda waxba iska qaban. Arrintan yaa la yareysan oo ha loo kaco. Aniga halkan wax aan xaqiijin ma soo geliyo. Kaasanu bogaaniga waa kuwa badangala balweenta yaan laga boojeenin kaasanu bogaaniga waa kuwa badangala balweenta yaan laga boojeenin kaasanu bogaaniga waa kuwa badangala balweenta yaan laga boojeenin